qaybtii u horeysay ee deeq mucaawino ah oo loogu talagalay 1,000 qoys oo kamid ah dadka ay abaaruhu barakiciyeen ee ku sugan deegaanada xeebta gobolka Selel ayaa maanta soo gaadhay tuulada Cabdulqaadir oo ka tirsan degmada Saylac. deeqdan raashinka oo ka koobnayd bariis, sonkor, baasto, saliid iyo timir ayaa waxa deegaankaasi soo gaadhsiiyay xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfa oo kamid ah mudanayaasha aqalka wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Chief Caaqil Fuad Cabdillaahi Ciise Darbo. waxaana deeqdani ku soo yaboohay muwaadin reer Soomaaliland oo magaciisa la yiraahdo Mustafa Cali Jaamac. khayr qabahan oo haatan ku sugan magaalada Berbera oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa ii sheegay in uu toddobaadkan soo maray meelo kamida deegaanada xeebta gobolka Selel, gaar ahaan meelaha ay sida xun u saameysay abaarta ka dhacday deegaankaasi, isla markaana uu ku arkay dad aad u itaal daran oo u baahan mucaawino degdeg ah. wuxuuna intaasi ku daray in uu ugu yaboohay raashin dhan 1,000 qoys kaasi oo soconi doona ilaa toddobaadka soo socda. deeqdani raashinka ayaa waxaa laga soo bilaabay deegaanka Habaas iyada oo maantana loo qaybinayay magaaladaasi Cabdulqaadir, isla markaana maalmaha soo socda lagu wado inuu soo gaadho deegaanada Madaxdadley, Jiri iyo Laanta Morohda. sidaasi waxaa ii sheegay xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfa oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay isaga oo ku sugan magaalada Cabdulqaadir. geesta kale waxaa xasuus mudan raashinkan oo maanta loo soo qaybiyay deegaanka Habaas, isla markaana gelinkii dambe loo qaybin lahaa deegaanka Cabdulqaadir ayaa ilaa gelinkii dambe hakad galay kadib roobab lixaadle oo deegaankaasi ka da'aya ilaa haatan. waa deeqdii u horeysay ee ka kooban 1,000 qoys oo soo gaadha deegaanadaasi, isla markaana uu ku yabooho shakhsi ka tirsan muxsiniinta Soomaaliland. maxamed cawaala daahir, magaalada Saylac.